بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil, emailka mar walba aad nagala soo xiriiri kartaan waa info@sologroups.com. waa request a lesson 10 ama 10 ay soo weydiiyaan qaar ka mid ah ardayda wax ka barata shabakada sologroups.com. School management software waxaa soo sameeyay mid ka mid ah ardayda shabakada isagoo iminka doonaya in debug iyo correct errors loo sameeyo. wuxuu soo dhisay isagoo isticmaalaya Visual Basic, SQL inuu dhiso management software kaasoo lagu maamulo school. design-ka adigu qurux badan yahay, qaabka koodka loo qoray adigu qurux badan yahay, laakiin wuxuu u baahan yahay xogaa in debug laga dhigo sababtoo ah qaladaad aad u fara badan ayaa soo galay qaabka design-ka loo sameeyay. marka isaga ayaa dhammaan 100% soo sameeyay. anagu waxaan ku sameynaa debug ama waxaan eegaynaa errorada ka bacdina waan saxaynaa. saa hore ku sheegay Visual Basic, SQL, anagu waxaan isticmaalnaa Visual Studio 2013 iyo SQL Server 2014. marka ereygan debug waa debug ayaa lagu sameeyaa maqashid waa la saxay, qaladaadka soo galay ayaa laga saxay. saa awgeeda qaladaadkaas ayaan ka saxayna, laakiin inta kale isaga ay goonitay. tabcan software-kan ma soo diri karno, isaga ayaa iskale qaabka uu sameeyey, laakiin waxaad ka baran doontaan waxyaalo aad u fara badan ka baran doontaan. tabcan waxaan isticmaalaynaa VMware Workstation, ayaan isticmaalaynaa Windows 7 ku duuban. saa ku aragtaan Visual Basic Project, Visual Studio Project. marka nooca doontid window aad u isticmaali kartaa. waxaa halkan noo yaala saan ku aragno Microsoft SQL Management Server 2014. halkan waxaa yaala Visual Studio oo furan. marka projectiga waa kan qaabkan School Management. haddii aan saan u furo gebi ahaan Visual Basic oo jeeda about SMS, about student, design, teacher, computer. waa runtii maaragtay project aad u qurux badan oo qaabka loo sameeyay aad u qurux badan. marka ugu horeyn waxaanu tegaynaa aan furaynaa dhanka iyo Microsoft Visual Studio Ultimate 2013. waxaan leeyahay file, project new ma ahan, waa open and dhahdaa project and solution. kadibna waxaan furayaa software management, kan ayaan furayaa 2 jeer ayaan riixayaa. waxaa soo baxaya software-kii. waxaa laga yaabaa waqti yar inuu qaato, waxay ku xiran tahay systemkaaga. anaga VMware ayaanu isticmaalaynaa. markuu sidan usoo baxo ugu horeyn waxaanu ku sameynaynaa star ayaanu leenahay. waxaanu eegaynaa qaladaadka meeshay ka socdaan iyo waxa aan ka qaban karno. markuu sidan usoo baxo ugu horeyn waxaan dhahaynaa ku dhacaya ilaa iyo 4 qalad oo 4 errors. marka wax walbo aan sameyno ma shaqeynayo. School Software Management dhammaanood ujeeda. marka bal aan sii eegno, waxaan leenahay start ayaan leenahay in aan ku sameyn karno run, inaan ku sameyn karno. ugu horeyn wuxuu leeyahay there were built errors. qaabka loo dhisay qaladad ayaa ku jira. ma doonaysa inaad aragtid? yes ayaan leenahay. wuxuu leeyahay Visual Studio cannot start debugging because meeshan uu ku jiro sidan ah waxa ka maqan software-ka .ex missing. marka please build project and retry. dhis ayay ku leeyahay. okay ayaan leenahay. marka iminka waxaan aragnaa ilaa iyo 8 errors oo kala duwan. marka software-kii uu diyaarsan yahay qoraalkiisa, laakiin ma shaqeynayo ilaa laga saxo. marka haddii aad tahay developer ama qof dhanka C# ama Visual Basic ama luqadaha kale ee programming-ka, halkan ayaa laga bilaabaa. 2 jeer ayaan riixay tusaalahaan kan. markii aan riixo waxaan arkaa qaladka ugu horeeyaan arko wuxuu noqonayaa qaladka la yiraahdo CLS compliant ayaa la yiraahdaa. CLS compliant wuxuu ka yimid CS-ka Common Language Specification. qaladka ugu horeeya ee dhacay kaas ayuu ahaa. sababtoo ah waxaan u jeedaa registration number ayaan u jeedaa. marka CLS-ka ma ogolaanayo space in lagu dhexda laga geliyo ama laga kala tago. marka bar ugu horeyn waxaan leeyahay halkan ayaan tegayaa control iyo F ayaan leeyahay. kan ayaa ii soo baxaya. marka waxaan raadinayaa registration ayaan raadinayaa. haddii aan idhaahdo regis waan arkaa. marka kan ayaan waxaan ku sameynayaa saan u raadiyo siduu yahay copy ayaan ku sameynayaa kan registrationka. ardayga qaladka ugu horeeyuu sameeyey kan ayuu ahaa. marka kaas ayaan saxaynaa. isaga ayaa halkan geynayaa. ugu horeyn waxaan arkaa labadan waxaa haysta problemka ah CLS compliant oo ah Common Language Specification. space haba yaraatee ma ogola. sababtana waa la garan la'yahay, laakiin qaabkan ayuu u soconaya. marka kan ayaan tegayaa halkan. waxaan leeyahay spaceka ayaan ka saarayaa, kana waan ka saarayaa, waana sii raadinaya halkan. space kale ayaan arkaa ilaa aan ka gaaro wixii aan rabay. kadibna waxaan leeyahay waan raadinayaa
kuma jiro uu dhamaaday markuu sidan u dhameeyo registration waxaan leeyahay build ayaan leeyahay rebuild solution ayaan leeyahay solution build ay ku sameeyay kii ugu horeeyay ka saaray kan labaad CLS a compliant problem ayaa haysta wali full name ayaa maqan oo registration ayaa laba jeer ayaan riixaya markii aan riixay iminka full name ayaan raadinaya full waa kan isla markii f markaan qoray uu ii soo saaray marka kan ayaan raadinayaa isla qaabkii kan oo ah full name ayaan saan u soo qabanaya waxaan leeyahay copy kadibna halkan ayaan ku sii deynayaa aad u jeeda labada full name ugu horeeyay halkan ay soo baxeen waan soo dhaweynayaa kanna waan soo dhaweynayaa waa inaan keediyaa waan sii raadinayaa haddii ku kala jiraan aka full name kale ayaa jira ama magaca buuxa oo sidan ah wali waan sii raadinayaa mid kale ayaa ku sii jira marka ilaa gabi ahaan ka wada heshid ma dhaafi kartid haddii kale wax shaqeynaya ma leh wuu dhammaaday kadib waxaan leeyahay build rebuild solutionka ku samee ayuu leeyahay sidan ah marka iminka waxaan aragnaa a too many argument ayaan halkan ku aragnaa oo ah data table as sms.student table ayaan halkan ku aragnaa marka laba jeer ayaan riixayaa markii aan riixo ugu horeyntii waxaan halkan ku arkaa error ayaan ku arkaa oo kan sidan igu soo qaado too many argument in the public overloads functionkan qalad ayaa ku jira marka waxaanu doonaynaa in aan aragno meesha uu ka yimid oo aan eegno isla markaana aan ku samayno solution aan u samayno halkan ayaan tegayaa ugu horeyn waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay go to the definitionka field by full name waan aragnaa iyo students data table halkan ayaan ku laabanayaa marka waxaan samaynayaa in aan ka saaro ama aan ka delete gareeyo ama gabi ahaan aan ka tirtiro dhankan wixii ka bilowda ilaa iyo halahan ayaan ka saarayaa kan oo ah extra isla markaana loo baahnayn kadibna meel empty ayaan tegayaa aad u jeedaa koodka iminka sidii loogu talagalay uu sax u yahay build ayaan leeyahay rebuild project ayaan leeyahay marka kadibna haddana waxaa soo baxay too many arguments in the public overridable overloads functionkan ayaa saan u soo baxay marka kaasna waa manage a teacher.vb ayaa halkan saan u yaallaa marka kanna waa inaan ogaanaa dhibka meeshuu ka yimid kaasoo haddii double click aan sidaan ugu sameeyo waxaan aragnaa iminka waxaan ku aragnaa halkan haddii teacherka ku yimaaday methodkan wuxuu haystaa uu leeyahay methodka aan soo baranay 3 parameters waxaan rabnaa inaan ka dhigno 2 inaan ka dhigno marka si aan uga dhigno waxaanu samaynaynaa koodka ayaan kan ka saaraynaa waxaan leenahay delete ayaan leenahay kan ilaa aan ka soo gaarno taxiga halkan ayaan leenahay marka koodka markuu sidan u noqdo waad ujeedaa me.teacher table adapter.field by search string me.mss teacher text si cad ayuu shaqeynaya marka waxaan leeyahay build ayaan leeyahay rebuild solution ayaan leeyahay marka iminka markuu sidan noqdo marka kii teacherka muhiim ayuu ahaa sababtoo ah ardayga wuxuu iloobay wuxuu ku sameeyey passing waxa la yidhaha 3 parameters isagoo ah 2 keliya saas ayuu noqday marka iminka waxaanu soo gaarnay assessments a table adapter is not a member of the social maba ka mid ahaba maba ku jiraba is not member marka sababtuna waxay tahay update references macnaheedu waxay tahay in boggan halkan yaala uusanba ku jirin meesha waxba uusan qaban karin marka waxaanu samaynaynaa solution fiican ayaan u helaynaa delete ayaan ku samaynaynaa waa tirtiraynaa sababtoo ah waxyaabihii aan tirtirnay oo dhan oo halkan aan ka saarnay ma shaqaynayaan haddii kan iminka ku jira aan la sii isticmaalno marka waxaan tegaya kan aan ka hadlayno waa kan haddii aad eegtaan print results kana marka kan shaqayn maayo designka ardayga uu soo sameeyey kana shaqayn maayo marka waxaan samaynayaa right click ayaan leeyahay waxaan ka dhigayaa rename ayaan leeyahay waxaan ku darayaa kaliya one si kii kalaan u sameeya haddaan halkan imaado warn ayuu siinaya wuxuu leeyahay you're renaming a file yes ayaan leeyahay waan rabaa in aan rename aan ku sameeyo marka iminka waxaan aadayaa school management halkan ayaan aaday kan ma tirtirin laakiin magac ayaan ka bedelay si aan u sameeyo kan mid magaciisa aan u sameeyo kan halahan keliya oo print result ah oo aan ku jirin one ka aan ku jirin marka anoo halkan jooga ayaan waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay add waxaan leeyahay new item markaan aad kadib anoo jooga halkan common items ayaan waxaan leeyahay windows form sidaan ugu dar kan ayaa halkan tegaya control v ayaan ku leeyahay
marka mid kale ayaan sameeyay iminka print result.visual basic ayaan leeyahay marka si caadi ah ayuu ugu daray kan marka anoo halkan jooga ayaan waxaan tegayaa laba jeer aan riixayaa kii aan magaca ka bedelnay ayaan laba jeer saan u riixayaa si designka ugu soo baxo designka uu soo baxay halkan ayaan riixayaa dushiisa kadibna waxaan doonayaa cabirka ama size-ka ayaan doonayaa in aan copy sameeyo si designka isu wada raaco kan aan doonayno inaan ka dhex saarno copy ayaan leeyahay kadib waxaan aadayaa kii hadda aan sameynay dushiisa ayaan riixayaa hoos ayaan saan ugu soo degayaa meesha size-kiisu uu ka yar yahay size-ka ayaan raadinaynaa size-ka waa kan isla cabirka ayuu noqonayaa waxaan leeyahay paste ayaan saan ugu leeyahay haddii meel aan imaado waxaad arkaysaa cabirka kan oo designka hadda aan sameynay iyo kan in uu isku wada mid yahay marka anagoo sidan ayaa waxaan tegaynaa halkan ayaan tegayaa iminka markii aan tago control ayaan qabanayaa class ayaan qabanayaa boxkan ayaan qabanayaa streamkan kan waan qabanayaa weli control ayaan hayaa subject ayaan qabanayaa kan ayaan qabanayaa ugu dambeyna kan ayaan saan usoo qabanayaa waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay waxaan doonayaa in anoo hayo saan uga qaado marka waxaan leeyahay class stream labadan ayaan saan usoo qabanayaa weli waxaan hayaa controlka kan waan qabanayaa kan waan qabanayaa kan waan qabanayaa kan waan qabanayaa right click ayaan leeyahay iminka copy ayaan leeyahay wuxuu ahaa kan oo designka kii aan tirtiri doono mustaqbalka kan ayaan ku laabanayaa halkan ayaan right click leeyahay paste ayaan leeyahay dhammaan designkii sidii loogu talagalay ayuu halkan u yimid saan ku aragno kadib anigoo isla meesha jooga waxaan riixayaa enter ca.vp ayaan riixayaa markaan riixo control kan ayaan riixayaa ugu horeyn control ayaan qabanayaa labadan ayaan soo qabanaya saddexdan waxaan leeyahay right click copy ayaan leeyahay kadibna waxaan aadayaa print result.vp oo kan halkan ayaan right click ku leeyahay kadibna waxaan leeyahay paste ayaan ku leeyahay marka it doesn't matter meeshii ay soo galaan iyo meeshii ay fadhiistaan si caadi ah ayay u shaqaynayaan marka muhiimaddu waxay tahay in ay halkan yimaadaan markaysaan u yimaadaan waxaanu doonaynaa iminka inaan ku samayno halkan waxaan ka bilaabaya halkan ayaan ka bilaabayaa laba jeer ayaan riixayaa kii ahaa markii aan riixo dhanka koodka ayaan imaanaya markaan imaado waxaan ku bilaabayaa oo aan soo qabanayaa koodka oo halkan ayaan kasoo bilaabayaa halkanna waan ku dhammaynayaa right click ayaan leeyahay copy waxaan isku bedelayna keliya laba design marka waxaan filayaa ardayda inay si fiican u fahmeen marka print result oo kan marka si aan la isugu qaldamin kan aan ka saaro waxaan haysanaa keliya print result oo kan print result oo kanna waan ka dhammaystay marka waan ka baxaya waxaan leeyahay yes ayaan leeyahay cancel iska socdo marka waxaan leeyahay print result labadan ayaa muhiima ka iyo kan kale marka halkan markaan imaado laba jeer ayaan riixayaa koodkii control iyo v ayaan leeyahay halkan ayaan san usoo geliyay marka waxaanu doonaynaa koodkan in aan saxna ayaanu doonaynaa waa muhiim koodkan siduu u shaqaynayo sababtoo kan haddii uusan shaqaynin wax shaqaynaya haba yaraatee ma jirto marka waxaan eegayaa koodka siduu yahay me.assessment table adapter a class stream subject me assessment marka waxaan doonayaa in koodkan aan saxo marka markaad aragtid qaladka noocaana meelahan aad tagtid wuxuu ku siinayaa optionka wuxuu ku siinayaa in uu sidan usoo saaro uu sidan u sameeyo oo aad ogaatid meeshu qalad ka socdo marka waxaanu eegaynaa classka iyo meesha qaladka uu ka socdo markii aan ku dhammaystirnana waan kusoo laabanaynaa si aan u aragno qaabkan u saxnay koodka waan saxnay saa ku aragtan waa kan qaladka kan ayaa sax marka haddii aad fiirisid me.assessments table adapter.fill by class stream subjectiga kuma jira marka software kuma dhisna sms.assessments-cbo class.text iyo cbo stream.text ugu dambeyntina wuxuu leeyahay me.report1.refresh report saas ayuu noqonaya marka waxaan sameynayaa kan waan ka saarayaa waxaan leeyahay right click v ayaan leeyahay koodka saxa waa kan sidan ayuu noqday marka waxaan leeyahay control iyo sna waa leeyahay mar walba wixii aan sameeyey si aan u keydiyo kadib waxaanu sameynaynaa control marka ku samaysid inta aanan softwareka tijaabo lagu samayn waxaanu sameynaynaa in kan oo wanka oo aan shaqayn inaan idhahdo right click exclude from a project ayaan leeyahay save print following kaydi laakiin exclude ayaan ka dhigna kuma jiro saa aaweeda si automatic ayuu halkan uga baxaysaa ku aragtaa marka awal waxaan u isticmaalnay tabcan delete ayaan ku samayn karnay laakiin waxaan u isticmaalay kaliya wuxuu ahaa in aan ka qaadano cabirka
iyo wixii kale ku jira ardayga uu ku sameeyey markuu sidan yahay waxaanu samaynaynaa ugu horeyn waxaanu eegaynaa oo aan leenahay debug ayaan leenahay start aan aragno inuu shaqeeyo in kale marka hadduu soo baxo aragtaan yaasir ayaa la yidhahdaa qofka sameeyey ardayga waxaa la yidhahdaa yaasir ayaa la yidhahdaa marka yaasir ayaa soo sameeyey marka waxaan filayaa inuu yahay arday runtii active ah oo waxyaabo badanna ka faa'iidaystay marka sidan ayuu noqday marka waxaa jira database isaga u gooni ah oo maaragtay kan aan kasoo dhex samaynay marka waxaanu samaynaynaa database-kii halkan ayaan ku shubnay saan ku aragno wuxuu isticmaalayaa Solo Groups ASP.NET ayaan u isticmaalay serverka la yiraahdo marka database-ka haddii halkan aan ka eegno waxaa la yidhahdaa databasekiisa SMSDB oo ka socota School Software Management haddii halkan saan usii eegno tableka keliya haddaad eegtid waxyaalo badan ayaa ku jira database assessment fees student wax walba iyo isticmaalayaasha oo halkan ah ku jira iyo waxaan ku aragnaa columns keys wax walba ayaan ku aragnaa teachers wax walba ayaan ku aragnaa halkan sidan column haddii aan sii aado waxaan ku aragnaa username and password halkan ku jira keys statics wax walba ayaa ku jira marka usernamekii passwordkii temporary ahaan waxaan u samaynay admin tabcan isaga wuu ka bedelan karaa marka waxaanu samaynaynaa iminka refresh ayaan ka dhigayaa isla markiina waxaanu eegaynaa waxyaabaha uu yaasir network unoo sameeyey marka intaanan gelin haddii aan ku laabto dhanka iyo database-ka waxaanu eegaynaa tabcan SMSDF saa horu sheegnay ee database-ka ah right click haddii aan database users waxaan xulayaa select waxaan leeyahay 100ka ugu horeeya ama 1000ka ugu horeeya ee database-ka ayaan eegaynaa marka waxaan ku aragnaa admin inuu yahay saan u xaqiijino marka haddii aad doontid halkan aad ka bedeli kartaa double click haddii aad samaysid waxaad ku samayn kartaa edit ayaa ku samayn kartaa right click waad oran kartaa waxaad rabtaa ku samayn kartaa marka adminka ayaa ku dhaafaynaa si isaga test ugu sameeya marka haddii aan aado dhankii kale waxaan leeyahay usernameka waxaan leeyahay admin passwordkana waxaan leeyahay admin haddii login aan idhaahdo waxaan aragnaa school management software main interface runtii aad ayuu qurux badan yahay backgroundkiis wax walba new student manage staff records school fees manage student grades print result marka daabacad badan ayaa ku jira saan ku aragno print report cards information about balan eegno school management software version 10 kii ugu horeeya yaasir network wuxuu sameeyey 2015 yaasir network ayaa sameeyey marka aan aragnaa marka haddii aan idhaahdo new student halkan ayuu ka bilaabayaa sawirka ardayga safe registration date of birth genderkiisa lab iyo dhadig wuxuu ahaadaba marka isaga ayaan u deynaynaa Mr. Yaasir log off kama shaqeynaya tabcan uu shaqeynaya sababtoo kan iyo hadda ku weydiiyey marka qaabkan ayuu shaqeynaya database-kan uu ku xiran yahay haddii aad doontid waa bedelaysa haddii aad doontid ku samaynaysa marka qaabkan ayuu ahaa cashirkan aan ugu talagalnay dhanka dibagga marka waxaanu samaynay school management software anaga ma samayn Solo Groups ma samayn waxa sameeyay Yaasir ayaa sameeyay arday wax ka barta shabakada sologroups.com isaga ayaa noo soo diray marka waxaan idhi mar walba 10 ayaan ka sameynay tabcan si ardayda kale ay uga faa'iidaystaan wuxuu isticmaalay Visual Basic SQL Visual Studio 2013 SQL Server 2014 ayaanu isticmaalnay marka wuxuu ahaa debug iyo correct errors laakiin shaqada 99.9 Yaasir ayaa sameeyay wixii macluumaad mar walba info@sologroups.com anigoo ah macna Cabdinaasir inta hawada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi